haddii aad tahay qof cashiro kooban soo gudbiya ama video editor waxaad mar walba u baahan tahay inaad qaato screenshot balse screenshot waxaa laga yaabaa haddii aad zoom soo dhahdo quality-giisa inuu kaa xumaado balse ila soco waxaan ku tusayaa habka ugu wanaagsan aad screenshot uga qaadi karto dhanka markaad isticmaalayso browserka screenshotkan wuxuu quseeyaa dhanka browserka ila soco page alla page-ka rabta ayaa kor imaanaysaa F2 alif ayaa taabanaysaa ama right click ayaa leedahay inspector ayaa dooranaysaa inspector markaad doorato meeshan haddii ay active ku tahay calaamadan inta waxaan kugu soo qormaya meesha aad wax ka bedeli lahayd balse anaga waxaa u baahanahay mid cusub inta hoostan ayaa dooranaysaa edit ayaa leedahay kabacdi waxaa leenahay add new ayaa leedahay meeshan device name-kaaga magacaaga u baxso laptop-kaaga ama high resolution midda doonto u baxso halkan waxaa ku qoraysaa 1920 dhankaana waxaa ku qoraysaa 1080 kabacdina meeshan device pixel meesha ku qoran tahayna 4 ayaa ku qoraysaa magac u baxso ku soo darso waa intaas oo kaliya kabacdi markaa ku soo darsato halkan waa iska xiraysaa meeshan ayuu ku soo galaya hadda magacan ugu horeeya shaashada isticmaalayo waayo BenQ 27 marka TikTok ayaan tagaynaa halkan TikTok profilkayga ayaa imaanaynaa waxaan rabnaa inaan screenshot ku sameyno kabacdi waxaa leedahay meesha day F2 alif ama waxaa leedahay right click inspector ayaa dooranaysaa marka intaas doorato kabacdi waxaa dooranaysaa meeshan shaashadaada inay active ku tahay loo baahan yahay BenQ kabacdina saddexdan dhibcood oo meeshan yaristaas ayaa imaanaysaa right click ayaa leedahay waxaa leedahay capture screenshot takamir ayaa soo loading ayuu sameynaa quality ugu fiican ayuu ku qaadayaa marka yaa u aragtaan kabacdi kan waa iska xiraysaa download soo sameeyay waa ujeedaan sawirkii sidan waa hadda markuu sidan yahay fiiri si kasta oo zoom soo dhahdid quality-ga xataa pixel ma sameynaayo marka waxaan rajeynayaa inaad videogan ka faa'iidaysataan haddii aad tahay dadka wax edit gareeya ama koorsooyinka sameeyo waa intaas oo keliya haddii halkan aad soo gaartay oo videoan aad ka heshay lana sii wadaag asxaabta wixii fikirkaaga iyo haddii aad isbeddel aragto dhanka commentiga igu wadaag asalaamu calaykum